Ma u fikirtaa si xad dhaaf ah oo qoto dheer, weliba joogto ah oo aan lahayn meel uu ku istaago, adigoo ka fakaraya waxyaabo dhacay ama dhici raba? Waa marka aad wax badan ka fakarto arrin aan xal degdeg ah lahayn, aadna u sii gudubto marxalad aad dhexda ka gasho wareer maskaxeed, taasoo keenaysa in maskaxdaadu noqoto mid daalan oo cabsidu ku badan tahay, lahayna wax xasilooni ah. Haddaba calaamadahan waa waxa lagu garto inuu ku hayo mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu badan ee bini'aadamku wajahayo xilliyadan dambe, waana overthinking, fakarka xad dhaafka ah. Insha Allah waxaan uga hadli doonaa muuqaalkeenan inagoo dhammaadka muuqaalkan iskula wadaagi doona sida aad uga bogsan karayso haddii aad la dhiban tahay mashaakilkan. fadlan muuqaalka like saar, channelka subscribe garee, lana wadaag asxaabtaada. waa noo farxad la joogaaga mudane. Fakarka xad dhaafka ah waa hab ay maskaxdu uga fakarayso arrin, weliba si xad dhaaf ah, iyadoo ku celcelinaysa fikirkaas marar badan. Fakarkan ma aha mid arrin taagan xal loogu raadinayo, laakiin waa mid ku salaysan arrin horey u dhacay ama wax hadda kadib dhici doona. Iyadoo aan lahayn xal cad ama waxqabad toos ah, ayay maskaxdu ka fakaraysaa sababaha wax horey u dhacay ay u dhaceen, iyo sida wax iman doona ay u dhici doonaan. Waxaa laga yaabaa in aad ka fakarayso arrin aadan u qaban sidii la rabay, laakiin waqtigiisii laga soo gudbay, ama arrin aan waqtigiisii la gaarin laakiin aad ka walwalayso siday wax noqon doonaan. Fakarka noocaas ah ayaa la yiraahdaa overthinking. Qofka fakarka xad dhaafka ah qaba waxa la soo darsa arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin walwal joogto ah, go'aan la'aan, niyad jab, hurdo xumo, iyo in qofku nolosha uu arko cadow weerar ku ah isaga. Fakarkan ayaa inta badan salka ku haya cabsida mustaqbalka, xasuuso xanuun badan oo hore, rabitaanka in wax waliba si sax ah u dhacaan. Caadiyanna waa wax nolosha caadiga ah ka soo horjeeda. Ma jiro qof boqolkiiba boqol buuxa, yacni dhan waliba ku fiican, waana sababta keenaysa in mararka qaar aysan wax waliba sidii la rabay u dhacayn. Haddaba maxaa keena ama maxay yihiin sababaha keena fakarka xad dhaafka ah? Overthinking waxaa keena sababo dhowr ah oo isugu jira kuwa maskaxeed, dareen ahaan, nolol ahaan, iyo xaalado hore oo qofku soo maray. Qodobada aan si gaar ah uga hadli doono waxaa ka mid ah walwalka mustaqbalka, in qofku uu ka baqo waxa dhici kara berrito. Haddii aan guuldarraysto maxaa dhici doona? Haddii aan arrinkan sidii la rabay aanan u qaban maxaa dhici doona? Sidee xaaladdiida noqon doonta? Marka cabsida iyo walwalkaadu bato, maskaxdu waxay bilaabaysaa fakar xad dhaaf ah si ay ugu diyaar garowdo khatar kasta. Halkaasna waxaa ka dhashay walwal joogto ah. Shayga labaad ee keena fakarka xad dhaafka ah isagana waxa weeye xasuuso hore oo xanuun leh. Qofkii hore u maray ama uu la kulmay ceeb, guuldarro, ama dhacdo xanuun badan wuxuu bilaabaa inuu dib ugu noqdo fikirkaas, isagoo naftiisa ku canaananaya, haddii aan sidaas samayn lahaa sidaan ma dhacdeen, maxaan qaladkaa u galay? Qoomamaynta noocan ah waxay noqon kartaa mid joogto ah, waxayna isu bedeli kartaa fikir xad dhaaf ah oo qofka noloshiisa halis geliya. Calaamada saddexaad iyana waxa weeye isla xisaabtan aad u adag. Qofka doonaya in wax waliba u dhacaan si quman ama sax ah wuxuu u nugul yahay overthinking, maxaa yeelay wuxuu ka fakarayaa sidii wax waliba ay u noqon lahaayeen boqolkiiba boqol. Waxa uu sidoo kale ka fakarayaa haddii shaygan uu u qaban waayo si sax ah ama boqolkiiba boqol ah, waxa ay dadku ka aamini doonaan, taasoo maskaxda ku rarta fakar xad dhaaf ah. Calaamadaha overthinkingku waa badan yihiin, waana wax in badan oo bulshada caalamka ah ay la dhiban yihiin, haba u badnaadeen dadka aan haysan diinta islaamka. Waa wax alla loogu mahadnaqo. Annagu ka muslim ahaan waxaan haysanaa gaashaan aan isaga difaacno dhibaatadan ay dad badan la dhiban yihiin. Haddii uu jiro qofkeen la dhiban arrinkan, insha Allah xal rasmi ah ayaan la wadaagayaa. Haddaba aan u gudagalno sida looga baxo bariiriga nafsadeed ama waxa loo yaqaano overthinking. Marka aad ka fakarayso wax aan iman, wax la soo dhaaf, ama wax dhacay oo aad ka xun tahay siday u dhaceen, waxaad dagaal kula jirtaa naftaada. Waxaad si toos ah u burburinaysaa farxaddaada iyo sacaadada naftaada. Haddaba waxaa mudan in aad joojiso ciqaabta naftaada iyo cadaabta aad marinayso noloshaada. Waxaadna ogaataa in wax waliba xagga Alle ka suurtagalaan, adiguna aad bini'aadam daciif ah tahay oo aadan ku filnayn culayska adduunyadan. Haddaba maxaad samaynaysaa marka culaysyo xagga nolosha ahi ku soo food saaraan? Ugu horrayn, Alla tala saaro. Niyadda ku qabso in culays waliba uu ka dambayn doono fudayd. Xaaladaha noloshuna aysan ahayn kuwo joogto ah oo ay isbedelayaan. Waxaa jirta maalin kuga adag iyo maalin kuu fudud, maalin aad faraxsan tahay, maalin aad murugsan tahay. Waa wax dabiici ah in noloshu sidaas ku socoto. Adigu ha ka dhigin marka wax culays badan oo in aad looga fakaro u baahan. Dadaal oo intaad awooddo wax qabo, wixii intaa ka dambeeyana Alle u daa oo isaga tala saaro. Waa hubaal Rabbiga kuma dayacayo. Qofkii Alle tala saartaa, Alle wuu ku filan yahay. Talada cilmiyeed ee lagu joojin karo overthinking aniguna aan rabo in aan kula wadaago, haddii aad qaadatana Allah fadligii aad uga bogsan karayso, waxa weeye ugu horrayn qor fikradahaaga intii aad maskaxda ku haysan lahayd. Qalbiga ayaa iska mashquula mooye warqaddu waxba kama xishooto. wax kastoo maskaxdaada ka guuxaya ama ku mashquulinaya qor oo nood garee intii aad maskaxda ku haysan lahayd, lianna qalinku waxa uu wataa nafis. Sidaas awgeed
noodgarey wax kasta oo maskaxdaada ka guuxaya. Samee jadwal ama wax la yiraahdo to-do list. Inta badan fakarka xad-dhaafka ah waxa uu yimaadaa marka wax badan aad isdul saarto oo aysan hawlahaagu ku kala baxsanayn. Kala hormari hawlahaaga. Marka aysan hawlahaagu ku kala nidaamsanayn, waxaa macquul ah inaadan wax badan qabsan oo waqtigu kaaga dhamaado adigoo waxba aanan qabsan, halkaasna uu ku burburo productivity-gaaga. Waana sababta keenaysa fakarka badan. Samee jadwal iyo nidaam hawlahaagu ku kala socdaan. Talada saddexaad ee aan ku siinayo waxa weeye cibaadadaada hagaaji. Waxyaabaha noloshaada dhanka kale u bedelaya waa xiriirka aad Rabbiga la leedahay sida uu u xooggan yahay. Noloshaada in aad farxad ku noolaato haddii aad rabto, waa inaad Rabbiga isku dhiibtaa. Waa in Rabbiga aad isu dhul dhigtaa. Allah subxaanahu wa tacaala waxa uu quraankiisa ku leeyahay, ciddii aniga xuskayga ka jeedsataa waxaan gelin nolol cidhiidhi ah, aakhirana wuxuu iman isagoo indhoola ah. Sidaas awgeed waa inaad in badan aad Rabbiga xustaa. Xusa baa Alle ina leeyahay aan idin xusuustee. Sidaas awgeed cibaadadaada xooji, salaadaha masaajidka geey, quraan akhriska badi, habeenkii 3 marka loo qaybiyo qaybta dambe kac oo Rabbiga u sujuud. Insha Allah baraara fara badan ayaad noloshaada ku arkaysaa. Talada afraad ee aan ku siinayo waxa weeye jimicsi samee. Hurdo kugu filan hurud. Maskax caafimaad qabta waxaa leh jir caafimaad qaba. Qofka hela hurdada fiican wuxuu ka stress yar yahay qofka kale. Seexo habeenkii xilli hore, kana kac hurdada xilli hore oo aroortii ah. Hawlahaagana si xigmadaysan u wajah. Ugu dambeyntii, walaal noloshu ma aha mid weligeed jiraysa ee waa meel aan safar ku wada nahay. Allana naguma kallifin culays aanan xambaari karin. Sidaas awgeed adigu naftaada ha dul saarin culays aysan awoodin in ay xambaarto. Dadaal samee, Alla tala saaro, natiijadana u daa Rabbiga. Fakarka xad-dhaafka ah ma joojin karo waxyaabo dhici doona, laakiin waxay kaa joojin doontaa in aad sacaado iyo farxad ku noolaato. Insha Allah waxaan rajaynayaa in aad muuqaalkan wax uun ka faa'iiday. Haddii aadan kanaalka subscribe dhihin, subscribe saar. Guul baan ku rajaynayaa. Ciao.